السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Umar Cali Xasan Umar Serbiya. waxaan halkan rabaa inaan ku qabto waraysi aan la yeelanayo Abwaan Maxamuud Caawil Cismaan oo loo yaqaano Abwaan Tooyo. waa nin dhinacyo badan nolosha kaga jira, hore reer magaalo ahaa, abwaan sameeya suugaanta kala duwan, kuwa badan ay caan yihiin oo wada garanaysaan. halka haddana qayb ka ah dadka nolosha miyiga ku nool oo ah nin xoolo dhaqata. waxaan doonaya kalka hore aad ugu mahad celinay waqtiga uu siiyey inuu iiga sheekeeyo bal qaabka u barbaaray, halka ku dhashay, waqtiga ku dhashay, barbaartiisii hore ugu yaraan 20 sano noloshiisa ugu horreeyay ilaa uu magaalada soo galay. waad mahadsantahay wariye. anigoo Maxamuud Caawil Cismaan ah oo Abwaan Tooyo nasiib wanaaga anagoo gudaari aanu ku leersano fadhina ayay noo yimaadeen wariyayaashu. waan ku horeysiinayaa noloshaydu waxay ka bilaabantay anigoo yar baan xamar tegey, dabeeto waxaan ka shaqayn jiray hudheelada ayaan muddo dheer ka shaqaynay. waxaan ku dhashayna Baka Tooyo een magaca kula baxay. alxamdulilah muddo dheer Hargeysa mee xamar weeye ta markaa aan ka bilaabay markaan yaraanteedii ka tegey Baka Tooyo. dhalashadii Baka Tooyo 56 jir baan ahay. taariikhda idinkaa dabageli doono waa waktiga. alxamdulilah barbaarista iyadoo xamar bay ahayd, waanu ka soo gadoonnay, debadda ayaa qabtay Sacuudiga. muddaan ku maqnaa 8 sannadooda, waan ka soo noqday xamartii baan ku noqdo haddana hudheel ka furtay 80kii. 83kiina waxaan imi Hargeysa, waxaan ka furtay hudheel Tooyo la yidhaah oo ilmaha afqaloo hudheelkooda tiyaatarka dhinaciisa. waa xaafadda New Hargeysa tiyaatarka dhinaciisa weeye bari. waa goobtanaynu fadhino. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. waxaanu soo kifaaxnay muddo dheer, caafimaadkayguna wuu wanaagsan yahay. intaas waxa weeyaan dhalashadaydii iyo taariikhdii barbaartaydii. waxay ahayd cuntooyin kala jaada oo imika la koobi karinoo cuntooyinka imika casriga ay sameeyaan aan ahayn nafaqooyin iyo waxaanu samayn jiray alaab kaalayla arag iyo alaabooyin baanu samayn jiray, inkastoo hudheelada imika ku arag. markii aan Hargeysa u soo wareegay ee hudheelka ka furtay ayay dawladdu iyara qashqashtay, dawladdii Soomaaliya. dabeeto way fara badnaayeen heesuye kuwa imika ilaacadaha ku jira. SNM baa laygu eedeeyey, waanan ahayo SNMta gudahaan ahaa, wax cadna layguma hayn. hase yeeshee raadad baa lay hadho, adigu dil baa laygu xukumay, ilaahayna wuu iga soo furtay. markaa dilka dabadiisii ayaan sameeyey maalintii sheekh la galay heestan ilaah baa deeq baxshay dulmiga cashka ka dah. waxaanay ahayd heestu hees aan anigoo murugaysan tiriyey oo cadhaysan. dabeetano marxuumkaa heesta qaadi jiray Axmed Gacayte, ilaahay u naxariista dhammaantoodii, ayaa ii yimi subax salaad hore. dabeetana wuxuu yidhi saaka waxaan kaa doonayaa hees. dabeetna waxaan ugu jawaabay Axmedow saakoo kale abwaaniinta waxba lama weydiiyo. xaaladda haysta tii xadhiggayga iyo maad iska dayn may haddaad maanta isiin weyda buu yidhi. dabeetana hudheelka hortiisa fooqa dhinaciisa galbeed meesha geedka garawaagii ku yaallo ayaannu istaagnay. gaadhi khara waa halkan fooqan deen maafka loo xagga bari ka soo baxa. gaadhi kharaab oo dam ayuu taagnaa, tagse meela ayuu istul taagay. dabeetna waxaan ku idhi waaye haddaad heesta doonayso muusigeeda dhaar ka dhig markaan midhaha intoo horse kuu sheego. dabeetana midhihii baanu bilaabay. anoon dooda iyo deeq dagaal layga badin ahayn, dareenkayga waad ogtoo afweyna la doodaya. madaxweyne ahaa jannoy halis daaqayo dabkaana adaashide halkaad iga daydaydiyo
halkaan degey kala durkee ilaah baa deeq baxshee madfaca daaraha ka daa haddaad doontana ku dumi rag baa debadda ugu maqan marka axmed ma hees jacaylu doonaya mise isaga laftiisa wuxuu doonaya arrintan jirta siyaasadeed dhinac kastaba ha ka aato wuu u baahan waan weydiiyo wuu ii sheegay wuxuu igu yidhi qoladii fanka sanguba haystay markaa tiyaatarka ayaa wuxuu yidhi wii cunaqabateeyey markaa hees khataroo aan ku soo baxo ayaan doonaya dabeetanaasaan u sameeyey dabeete markaan beydkaa u horreeyey u sheegay baan ku idhi muusigii maqashii dabeete kaman wuxuu garaacay damankii gaadhiga waan dhegaystay afkiisii baan dhegaystay laxanka gaadhiga dushiisii damanka halkaasu kale waan taagani waa damankaa gaadhigoo kale dee halkaa hore ka warka dabeetana waxaan dhegaystay farardhaqdhaqaajintiisii muusiguu tumeeyey codkiisii ayaanu isu dhidaas heesta bal u fiirsada markay soo gelayso wale bile tale dadaarin dadaarin dadaa 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 muusiga u fiirsada dabeet heestii markii uu qaaday ee uu tiyaatarka ka qaaday googoos baa la dhigayo ayaa biis uun heestii un la dalbaday markaa heestana waa sida eryada hore intaad waxba ka bedelinba saasuu dadka u qaaday sidaasaan ugu qaaday tiyaatarkan hargeysuu ka qaaday ee horteenna inaga soo jeeda dabeetana waxaan ku idhi waa lagugu xidhayaa midhahan ha laygu xidha buu yidhi waa la xidhay dabeeto anigu ii yeedhay oo layla soo hadlay sii daaya baanoo waan tegey meel gusuurada loodhan jiray halkaas xafiis halkaasabuu ahaa dabeetana waxaa dhacday markii aan imi ayaa la yidhi midhaha ka warran anigaa balabaan ku idhi iska sitaaya fanaankan axmed gacayte waxaa markaa dhacday oo la yidhi heesta maxaad uga jeeddaa waxaan uga jeeday baan ku idhi sidaa ay tahay weeyi dawladdaan la hadlayaa dabeete waxaa la yidhi meel lagu xidhaabaa doonaysa xadhgu waxba ima yeelo daymankaba dil baan ka soo baxay baan ku idhi oo haddii ilaahay ii qoray xadhigga waan xidhmi laakiin sidaa waxba ka bedelayo adigu heshiis baanu gallay xafiiskii waxaa la yidhi kalaba bedelo jacayl iyo waxu bedelo markaasaanu dabeete ilaahay baa deeq baxshay dulbiga cashiqa ka daa halkaasay ka timi ma fahantay waxay dani ka hentayo halgacal baayla durko dadiyo dunyaba ka go'ay waxbaa deertihii noqdee waxay dani ka hentayo halgacal baayla durko dadiyo dunyaba ka go'ay waxbaa deertihii noqdee dugaaggan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan halkan degi kalaa dukee dugaaggan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan halkan degi kalaa dukee ilaah baa deeq baxshee dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa heestan buu ayaan u dhiibayoo heestii way luntay iyaduna waxay ahayd bandoodii ba hodheelka dhexdiisaanaan ugu qabta annagoo 12 habeennimo ka baxayna aniyo midaanu walaalna dabeetana isaga iga horreeyo markay kaxeeyeen baanana soo daba galay dabeeto markaan laamida soo qabsaday ayaan bilaabay midhaha askarigiina wuu dhinac socdaa wuu naxaa ma nuuxsado nimuu nacab haleelay anna nolosha awgaa waxaan naadiyaayo niyadan aan ka doonaba ha yeeshee nitaaqdee intay noloshu diiq tahay anna nabarkan aan qabo
wakhtigubana ruurale noolana ayaakii ha yeeshee nin liitiyo nacaskuuma naxayee nayruushkii la waayiyo soo noqoy nasrigoo nabaaddiina xidhashiya hadday nolol joogtaa baan gaadhiga oo barta taagan kula kulmay markaasuu ninkii ciidanka wadi yidhi matuuyaad waddaa haa war naga sii daa markaasaan intaa gaadhiga saaranna soo daa intii gaadhiga meelahaan laga qabqabtay aan intaana soo daa suu waar naga kaxay soo naga tag suu ninka dawladduba khaati bay ka joogtahay aan lagu soo qabanin iyadii yidhi hodheelkiisa taga taariikhdaa dabeeto waa la qaxay dabeeto annagoo sidii yahay waxaan u qaxay dee daroor waa gartay heestan kale iyada maxaa taarikh ku jirta axmed mooge qaado axmed mooge liibaan allah u naxariisto heestu waxay ahayd hees qaaliya waxaanay la socotay 6 heesoodoo kale markaa 6dii heesoodu way lumeen inkastoo de anigu aan midhiiyo laxankooduba haysto maan maqal iminka meelay ka baxayaan horyaalkuna wuxuu ahaa heesta adduumaa wareer waxaanay ku soo baxday anigoo dibadda ka imi iyo qayb aniga ii gaar ahaydoo habla aanu sheekaysan jiro markaa guursaday oo dee guri yeeshay hawlahoodii dabeetana si kadisuun baa laygu yidhi intii heblaayo waa la guursaday halkaa dabeeto baragshir baa ka kacayoo heestu adduumaa wareer dee waa waxaanan filayn adduumaa wareeroo warya sheekaa ka hadha ruuxnaba kuma waarayo wadkana wou siman yihiin wadaadkan waxwaashe iyo wabiinka munaafiqi wixii hore aadmi iyo walaacaan sooba arag warida hore aanu baran miyuu wax ka garan karaa haddaan wacanay ku idhi adiga waajibkaaga gudo miyaad weligaas odhan adiga wehelkaas jiro wadaaguhu waardaa weedhiyo hadalkaas wada waanana dhalan baa ka adag nasiibku ma waalan yahay xaggeebuu nagu wadaa gantaashanna wiiqday iyo wahay labadeenna wiil xagga jacaylkana way taabanaysa oo jacayl gaashaaman buu ahaa iminkiiyo haddana weriye waxaan sidii aan u qaxayba anigu halkan kuma soo noqon markii aan soo noqday een hudheelkaygiiyo cidla caarsila oo
maran aan imi aan xaadxaadhay ayay tii daba bilaabtay hoogayoo bayd tii somalilan mahe isaaqu is weeraray weerartaa xuduud noqon isaaq baa is weerari waa waxaana leegiin nolosha miyiga waa nolol adag horta alxamdulilah waanay debi yartay oo waxaan imika lagu dhex jiray iyo haddii rabbi xogmayo dee waxyaabahaad arkayso ma leh waa meel iska asturo weeye miyigu xadaafir iyo baahi badan iyo waxna uu leeyahy hase yeeshee qofkii dee iska aaminee ama wax ku haysta ama dee uba dhashayee meel kale u dhaqaaqaa garayn wuu iskaga noolaan karaa markaad magaalada u eegto dee dhaldhalaalka magaalo iyo fooqyada ninaan waxba ku lahayn daawashadeedu horta waxba uma soo sito marka halkan waxaa ka door bade inaan xan yaroo ariya iska samaysto halkaa carruurteeda iskaga tusbiixsado adigu ilaa 200 oo naga xumaado dee waa abaarayo waxbaa jire ilaa 200 oo neef geeligu waa 4 halaad haa nin carruurtii iyo islaantuba iska wanaagsan imika 3 inanuun baa nool ma fahantay iyo hooyadood haa waa wanaagsanay oo dee nin af libaax ka ahaan jiray dee waxaan waxba uma hayn laakiin meelahaygaasa ilaahay ii sakhiraayo aan dee iska xaabxaaba maba soo safro anigu adhigaba ma soo kaxeeyo sababto ay tahay haddaan 5 soo kaxeeyo haddaan 10 soo kaxeeyaba seelidaba kala iman maayo waayo dee macaariifteedaa fara badan oo aan wax la cunaa marka islaantu baa soo kaxaysata tusaale ahaan qofka maqla abwaan tuunya laga qaaday waraysi sidan aan kula kulmin tuunya waa nin nooco weeg anigu waxaan u eegaa nin dee jaafajuloon waxaan nin maariina oo dhexdhexaada oo wegdele oo aad u xiraystay dee waahaye oo gaadhka aad uga sii xiraystay oo had iyo jeeraal kooloon madmadow uskag badanna qaata oo xaragadan iyo waxaan dadku iyo waana habeenkunbaa biyigeliya waa nadiifiyaa waxaba waa soo dhaafay markaa waan daawadaa dadka bal waxaa ku qorshaysan xagga sugaanta wixii hadda ka dambeeya haddii ilaahay yidhaahdo waxaa ii qorshaysan oo aan la diyaarahay barnaamij taxanaa oo teedhisigiis la yidhaahdo oo 36 dhacda ah oo dadyabaha la yidhaahdo oo kolba qayb ka hadlaaya oo aan ahayn beel ee wixii dhacay waddanka wixii ka dhacay siyaasad iyo nolol kaleba wixii ka dhacay oo cilmiyeysan baa kolba qayb sii deynay waa hagaag intaasuu ku dhan yahay waraysigaasi aan la yeeshay abwaan tuuyo goobta aan fadhina waraysigaan kaga qabtay haddii in yar adiin tilmaamo waa gidaar xagga ka soo eegaya koonfureed tiyaatarka hargeysa oo isagoo wakhtigan aan shaqaynin oo dhisma ku socdo aad baan idin salaamaya dhammaantiin waanad ku mahadsantiin dhegeysiga waraysigan sidoo kale waxaan mahad celinayaa saaxiibkii cabdiraxmaan oo isagu suurto geliyey inuu abwaanka sukaaye xidho iyo abwaan tuuyo isaguna si sharaf leh noo soo dhoweeyey aad baan ku salaamaya abwaan